الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفاه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وSomali Women's Empowerment and Organizing Services oo idin la soo dhawaada to empower Somali women and Somali parents. Waxaan rabnaa inaan ogaano wax badan oo yacni nolosha wadamadan aan usoo qaxnay ku saabsan inaan idinla wadaagno taasoo aan isleenahay waalidka in badan oo cabsida uga jirto socialka iyo booliiska iyo cidda hortimaada ayay ka kabaysaa oo ka kaafin doontaa biidnillaahi ilbaari. waxaan rabnaa inaan idiin qeexna maanta awoodda waalidka looga baahan yahay maxaa ka mid ah parenting capacity aan rabaa maanta inaan sharxo. waa awoodda waalidka uu leeyahay. maasha allah, soo dhawaada walaalahay dhammaan. awooddaas yaa kaa baaraayo marka social servicesku ku yimaado, waa lagaa baaraa. macalimiintu waxay caruurta ka baaraan ayay ka mid tahay. waxaa kaloo jirta in loo baahan yahay awood waalidka, yacni taad haysata waxba kama bedelna, laakiin nidaamka aan u isticmaalno iyo kee ciddaan u rabaan ayaa xoogaa yar kala duwan. marka saasaa rabaa inaan wax badan ka ogaano insha allah. waxaa la rabaa waalidku inuu muujiyo faham oo fahmaya rabitaanka cunuga. mar walba waan fahamsannaha rabitaanka cunugeena, laakiin maxaana la ka rabaa inaan ka fahamno. waxaan rabnaa inaan ilmihii fahamno, inaan fahmi karno ayaana laka baarayaa cunugaas yarka ah waxa uu waalidka uga baahan yahay in general. hadday tahay dabeecadda oo cunuga toosinteeda oo kale, awoodda waalidka waxaa looga baahan yahay inuu sixi karo cunuga dabeecadiisa asoo asaga tiisa saxaaya, oona muujinaya mar walbaba mas-uuliyad waalidnimo oo ah inuu cunugaas akhlaaq xumada kaga horseeda midda wanaagsan, uu tuso jidka wanaagsan. waana sida sunnadu tahay nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ilmaha saddexa la baray ahayd: ittaqi llaha xaysumaa kunt, meeshaad joogtaba alla ka baq. wa atbici sayi'ata alxasana, haddaa xumaan samaysana wanaagga ku dabo like. markaad wax halayso soori dheh, waxbad ha halaynin marka hore. haddaa halayso soori dheh. wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan oo yiri nabigu sala allahu calayhi wasalam. ibni aadankana dabeecad wanaagsan iyo akhlaaq kula dhaqan ayuu yiri nabigu sala allahu calayhi wasalam. waana taas midda oo nolosha adduunka ugu wanaagsan, jidka toosana ummadda ku hogaamiso. waddankaana tan looga baahan yahay intaas lee waayo. marka diinta waa bayska nolosha, mar walbana diinteenna inaan ka qaadano waxyaalaha muhiimka nolosha u ah, taasoo ilaahi subxaana wa tacaala uu noo dooray. waxaa la rabaa inay waalidku ou ilmaha siin karaa la yiri safe environment. waa ku dadaalnaa taas, guri nadiif ah, nolol nadiif ah iyo barwaaqo ilmaheena inaan gelino. waana mas-uuliyadda hooyo kasta iyo aabbo kasta ay maalin kasta u taagan yihiin. inta badanna waxaan leenahay aabbayaashii soomaaliyeed way ka jiifteen arrintaas. hooyooyinka ayaa inta badan kabargareeya. markaan yurub iyo maraykanka joogno, dadka oo waalidnimada mas-uuliyaddooda ku dambaysana waa 2% sida xaliimo soofer raxmatullaahi calayha noo sheegtay. waxaa la rabaa inuu waalidku kala garan karo positivity-ga iyo negativity-ga waxa ay tahay. yacni haddaa ilmaha ku xanaaqda ha ku qaylinin. nidaam wanaagsan oo ilmahaaga hadhow dadka isaga celin karo inaa u samayso ood u horseedo behavior aan negative ahayn ayay tahay waxyaalaha ay social servicesku dadka ka baaraan ama nolosha wanaagsan looga baahan yahay. inaad mar walbaba tixgelin karta ayay kaa rabaan ilmahaaga noloshiisa. like hooyadoo kale marka ay soo booqato qofka socialka ama ninka social serviceska ah, waxay ku weydiinayaan su-aalo qaldan oo irrelevant to your story ah. waxyaalo badan oo kaa xanaajin karay ku weydiinaan. marka adoon xanaaqin, si tartiib ah oo degan uga jawaab, siina jawaabta ugu habboon, adoon marnaba ka baqaynin. that is your rights as a parent. marka waxaa la rabaa inuu ilmihii oo rabitaankiisa guud oo dhan uu waalidku kobargarayn karo. maxaa ka mid ah gadaalan ka sharxaynaa insha allah. waxaa la rabaa inay yacni si xaqiiqo ah, haddii aad adigu xoogaa aad muujiso xoogaa cabsi iyo
inaad adoo socialki walwal ka muujinaya hadday ay ku arkaan inaad qof cabsanaya tahay waxay u arki doonaa inaad qof wax qarinaysa tahay taasna waa midda ugu xun oo annaga communitygeena asiibtay marka bliis waxba cabsiya male arrintaas si fiican inaan u wajahnaa la rabaa oo waxa aad tahay aa marnaba waalidnimadaada aadan ka gaabin haddii lagu yiro ay iyagoo ku weydiinayaan cunugaaga uu wax usoo baxo rabitaanka cunugaaga wax yar uu dareenka cunugaaga kobargaree mar walba iyo rabitaankiisa ilmahaagoo isdagaalaya ha sii fadhinin oo qofkaana kuu fadhiya ha isdhihin qofta kuu fadhida intaad boos garaysato tiraado isug ilmahaaga rabitaankooda oofi mar walbana taas ku dadaal hooyada iyo aabaha soomaaliyeedo wax cabsiya malaha haddii aad cabsato laakiin waxaad noqon doontaa qof wax qarinayo oo mar walbaba wax kale laga sii baaro su-aalaha kaa xanaajinayana mar walbaba ha ku xanaaqin laakiin si wanaagsan uga jawaab oo akhlaaq iyo sharaf leh adoon cabsanaynin xanaaqsanayna oon qaylinaynin si aadan xuquuqdaada u weynin waxaa la rabaa inay waalidku maamuli karaan dabeecadda cunuga ama akhlaaqdiisa ama tarbiyadiisa waxyaalaha layska baarayayna ka mid tahay oo parental capacityga awoodda waalidka looga baahan yahay ka mid tahay oo cidahan ay mar walbaba tixgeliyaan ay kaa fiiriyaan waxay tahay inay ogaadaan ay rabaan meelaha awooddaada waxaad aad ku adag ku xun tahay iyo waxaad ku saxsan tahay yacni waxaad adi wiig ku tahay iyo wixii aad awood u leedahayba waa lagu assess garaynayaa waana parental capacityga looga baahan yahay inuu waalidku ogaado in la ogaado parenting capacity waa mawduuca ugu muhiimsan ay cidahan dadka ka baaraan marka taas si aad u hesho deganaan mar walbo iyo adoona cabsi kugu jirin because wax kaa qaadaya maleh haddii aadan mar walbaba adi xuquuqdaada dhuminin laakiin su-aalo qaldanaa lagu weydiinaa si ama u xanaaqdo ama aad magaciisayso intaa xanaaqi lahayd qofta ku dhe iska bax aniga adi waxba islama wadi karna because si qaldana iila dhaqmaysa ana xaqa u leedaha taas waxaa la rabaa ilmahaaga horumarkiisa iyo progresska uu nolosha uga baahan yahay yaraantiisa dhalinyaronimadiisa iyo marka uu teen ager galo arrimuhu waa isbedbedelayaan hormonal change yaa imaanayo cunuga xataa waxaa laga yaabaa afnaq dagaal barabaleen badan inuu kuu keeno taasoo la raba inaad mar walbaba isdejiso sababtoo cunugaaga wuxuu raadinayaa weak pointigaaga marka uu soo gaaro isku taagtaaga iyo maqalo xoorxoorka arrinta ay soomaalida u taqaanoo kale marka ilmihii uu saas kuula yimaado waxaa la rabaa mar walba waalid degan oo u dhimriyo ilmahaaga hortoodna baariyaa la noqdaa maqli jiray ood mar walbaba si aad jidka fiican ilmihii u tusto because hormonal janjiga waa problem dadkii soo galo ilmihii markuu soo galana wax badana ilmihii iska bedelayo haddaa ilmahaagii la tirsato adoo mar walbaba faam ah oo aadan ka leexanaynin wixii oo saxda ah ilmihii u sheeg waa mahadsantii ilmihii waxaad u sheegtaa thanks habareer waxaa ilmihii u sheegtaa in uu toosnaantaasna adiga uusan kuu toosnaanaynin uu nafsadiisa khatarta badan oo noloshu ay leedahay uga imaanayso uu kasii digtoonaado maanta waa teen ager baa tahay hooyo ama aabbo waxay tahay nolol tan ugu wanaagsan ayaad galaysaa markaad hadda waa jaranjaro aad koraysid jaranjaradaas ha iska tuurin waa the best way hadda inaad juus garaysato ay tahay waa ku salaama way macaani abukar cadde waxay tahay inaad juus garaysato jidkii aad jaranjaradaas ama sax ama qalad u kori laheyd markan jaranjarada si fiican haddaa u kortana success iyo horumaray leedahay haddaa si qaldan u kortana jaranjaradan dhinaca uga dhacee markaasna qofku celi karta male hooyo marka teen agernimada way kulushahay laakiin waxaa la rabaa inaan jidka toosan mar walbaba ku soo jiidno oo maxay ahayto ilmihii aan annaga u noqono good role models laakiin haddii la isdagaalo oo la isku qayliyo ilmihii mar walbaba mental ability mentally wax u dhimaa ama socially u effect garaynaa ama ilmahaaga wuxuu dareemayaa inaan yacni wax caawinaada helaynin mar walbana ilmihii wuu isku buuqi karaa laakiin saas si aan waxaas iyo wixii lamida uga digtoonaano waxaa la rabaa in
uu helo ilmihii rabitaankiisa guud ahaan adigoo mar walbaba baari u noqonayo ilmahaaga si uu baari u noqdo noloshan adayga badan leh oo dhibaatada leh oo ay maxay ahayto oo xanuunka badan leh bannaanada Yurub iyo Maraykan ka jirtan uu uga baxsado ilaan adduunkan waxa aan soo marnay anaga nolol firaaqo leh oo farxad leh oo barwaaqo ah oo cidna cid aysan waxyaalaha bullyingka faraha badan leh iyo abuse-ka aysan jirin aan soo marnay laakiin haddaa ilmihii laga warqabin dhibka aad iyo aad u yaraana marka mar walbaba waxaa waalidka laga rabaa basic care iyo ability to show cunugaaga waxaan inay qaldan yihiin waxaana inay dhammaanayaan oo marka uu ilmihii soo kacayo madaxa soo taagayo madax soo taagaasna waa ilmo Yurub aabayaashii intay dhaheen ay ka qaxeen aabayaashii Soomaaliyeed oo qaxayow ilmihiina dayacdeen moogi gabadhaan meel adduunyada mid kasta ay u qurux badan tahay u qiimo badan tahay laakiin qofta aad dayacaysa waa gabadhaadii waa wiilkaagii waa ilmahaagii ayagaad abilitygooda hoos u dhigtay gabadhaana wax haba yaraatee aad adigu ka qaadi karta ma jirto marka ilmo Yurub waaye ani kuwa kale xagga ku samaysanay waa la sheegayay kuwii kaleetana balanbal iyo ciilad badeeno waa kuwaas meelaha ka soo ooyayo waxaan aad iyo aad uga xumahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun ninka dhan oo gabadha nolosheeda ku aamintay intuu ka soo duubay caradii ay u hadasho iyo cadaabkii uu asagu baday oo nin muhiim mas-uul ah aan u malaynayno nin Soomaaliyeed maanta magaciisa ma sheegaya laakiin mar dambe aan soo sheegi doonaa oo gabadha yarta ahayd uu dhali karay intuu ilmo ku soo raray waa Dubay oo kadeedka iyo shidada iyo buuqa iyo rafaadka iyo silaca halka qof oo singalka ku haystay uu ilmo yar intuu ku soo raray ilmihii ay dariiqada la marmaraysay la adeegayso waxay siisata la'dahay oo nolol u raadinayso elaboorka laygu keeno oo dagaal inta ugu ula duubay ee markay xanaaqday soo duubtay xanaaqeedii uu waraysigeedu ku soo kor duubay an is form of abuse gabadha abuse-ka u geysatay wiilka oo ayaamahan Facebook iyo waxaas ka hadlayo waa istaqaana on mas-uulka u malaynayno ka jar ka bixi waxaas gabadha meesha ka soo gelisay which is inappropriate inaa ka arrimahaas oo kale aad soo dhigto dadka kaleeto oo gabdhaha masaakiinta ana caradayo idinkana gabadhaas xanuun ahaaya xanuun iyo dhibaato uu wiilkaas u geyst ninkaas odayga ah u geystaa haayo ilmihiisa meelahan ay ku dayacan yihiin qaar kale meelahan ku dayacayna waa jira ninka oo ku jiro YouTube-ka gabadha yarta ah oo Dubay joogto ilmaha la balanbalayso oo la rafaadsan oo la silacsan haddana cod intuu ka soo duuba meesha soo dhigayo gabadha codkeeda meesha ka saar waad qaldan tahay abuseraana tahay tii hore kuguma filna iyadoo kaligeedteedii la ciiriyayso nolol taas ka wanaagsan inay hesho rabtay maanta jidka haddana rabto inaad ilmaheedii uga wadato at the same time waxaa weli lasii taaganta inaad isla sii fiican tahood ood soo dhigayso social media which is totally abuse oo akhlaaq xumo ah privacy-ga gabadha ay kugula caytantay ama kugula waxaysan adaa dhibtay ma soo dhigi kartid ka saar marka arrimahaas iyo wixii lamidana culamaa ul islaam hadday gabadhu caytanto way soo hadli jireen laakiin hadda ninka oo weyno gabadha yartaa codkeeda ma soo dhigay maxaa moyse xaaraam ahayn maxaa looga soo hadlin subxaan allah arrintii aab waxay noqoto rag iyo dumar dagaal dhex yaallo waa waxaasna waxaa keenayo interpersonal skillska keena ayaa very low ah sensitivity-geenana waa high gabadha dhibaatada loo geystay waan ka xunnahay haddii la xaliyeyna waa kaas haddaanan la xalinina إلهي سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ويري يعني وآيات إلهي يعط علماء الإسلام إني كسوها